bilaabeen dadkan baxa maanta waxaan rabaa inaan idiin cadeeyo inaan u sharaxnahay kursiga nambarkiisu yahay 129 oo nugaal Garowe ayaan oo deegaan doorashadiisuna Garowe tahay ayaan rabaa inaan u tartamo golaha shacabka federaalka ah waxaan idinka codsanayaa dhammaan dadka roomkan qolkan ku jira cid kasta yar iyo weyn odayaal caaqiliin kulli waxaan idinka codsanayaa inaad kursiga igu taageertaan oo beesha meheri ka soo baxaya oo gabadha ah beesha meheri 3 kursi bay leedahay mid baa gabadha kursigeeda ayaa rabaa inay igula dagaalantaan oo garabkayga ku istaagtaan oo igala shaqaysaan oo aniguna aan abaalkeeda gudi karo oo aan ahay naakarti u leh inay u shaqayso dalkeeda iyo dadkeeda dhinac walbay joogaan haday waxbarasho tahay haday caafimaad tahay haday dad la kaalmeeyo tahay cid kasta horena waa uga shaqayn jiro samafala caadiyaan ba iska aha haddana haddaan xasaanad helo oo galgal inta ka badan baan helayaa waxaan idin la jeclaan lahaa maanta intiinaan iyo inta maqan oo idaawan doonta ama ay maqli doonta ina kursiga la igu taageero Meheri Maxamuud Saalax gaar ahaan waxaan ka codsanayaa beel walba beesha dadka halkan fadhiya beel kaliya maaha Meheri oo dhan bay isugu jiraan gaar ahaan waxa ugu tira badan beesheeda reer Naalaye waxaan rabaa inaan kursiga la igu taageero oo la igula dagaalamo la ina gacanta la tago oday iyo wiilba aan la iga harin aniguna aan shaqeeyo marka odayaasha waxaan ka codsanayaa inaad si fiican ii taageertaan iyo wiilasha dhanba ma garateen qof hawsha ka soo bixi kartana waa ahay qof hawsha sameyn kartana waa ahay marka waxaan rabaa maanta inaan la idhiin waa lagu taageeray ama kursi gabdheede waa inaan la idhaho waanu ku siinay waana ku taageernay qabiilada maqan oo meheriga oo ciday joogaanba meel kasta ugu tagtaan oo adiga soo qaadaan inta la soo fariisataan aniga ii raadisaaniin waa mahadsantihiin insha Allah khayr baan idinka rajaynaya waxay la tahay qada sharaftan waxa inoo dhigtay musharaxada Istanbul Sultan Abdullahi Xaaji Nuur waa soo dhaweynaa musharaxada wax walba la tartanka maanta jireen waxay la tahay wacyiga jireen walba la socdaa in kuraastu furan tahay oo la yiri tartan baa ka jira anagu gaar ahaan waa soo dhaweynaynaa waa taageersanahay musharaxadina tahayna meesha ugu nimi sidaas aanu tolku la socodsiinayna wabillahi tawfiiq aad baan idin salaamayaa ragiina meesha ka soo qayb galay rag iyo dumarna waa joogan saan filayo Istanbulna waa salaamaya si gaar ah iyadana haday tolkii maanta halka codsigeedana ku soo jeedisay mid labaad marka waxaan hadalka codsigeedii markaan eego Istanbul anigu waxay la tahay hadalka in loo taakiidiyo marka waana ku soo dhaweynaynaa waana kula dagaal tagaynaa hadii gabadhii haday codsato tiri hallay taageero meelaanu anagu ku celinayna ma jirto aanu ku anfiyeynaaye waa kulli waa tartan kursiga tartankii inay ka qayb gasho diyaar baan u leenahay anaguna aanu tolkeednahay oo aanu ku taageerin walaashay musharaxad Istanbul Sultan Abdullahi Xaaji Nuur oo qadada noo sameysay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa waana taageersanahay waxaan aad u soo dhaweynayaa Istanbul Sultan Abdullahi Sultan Xaaji Nuur runtii waa qof runtii u qalmata waana soo dhaweynaa xaq baan u leedahay inay sharaxdo insha Allah taala waana soo dhaweynayaa aad iyo aad baan mataqaana u soo dhaweynaynaa adiga ku soo dhaweynaa murashaxad baa tahay wala ku soo dhaweynaa Istanbul Abdullahi Xaaji Nuur musharaxnimadeeda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa qof karti leh waa qof macnaha matali ka beesha Meheri Ismaaciil waa qof ma garanaysaa dadka gaarsiin ka meel sare aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa marka in nala qaato tolka iyo nala qaataan ma aha mid la eedi doono waa mid la mahadin doono haddii Ilaahay idmo oo aad iyo aad karti u leh waana garab taaganahay meel walbo ay gashana inaanu kala saarno baan rabnaa haddii Allah idmo عليكم كرسيga waxa iska leh dumar baa iska leh anagana waxa siinay kursigeena Istanbul Arab Door soo dhaw baa leenahay sarafka ka soo qabshay musharaxadeeda xafladda lagu soo dhaweysay maanta Sultan Istanbul Abdullahi Xaaji Nuur oo aan rabno in aan soo dhaweyno meel kastaba oo musharaxnimadaas ay gasho in aan kala galno
xaquuq iyo xaqna ee u leedahay kartina ee u leedahay wax soo saar haday noqoto oo wax walba oo ee qaban karto oo kartideeda iyo umureeda aad iyo aad u wanaagsan yihiin dadkana faamilada kalena waxaan ka codsanaynaa in ay nagala qayb qaataan ee nagala soo saaraan gabadhaas oo aan wadano haddaan nahay beesha reer Naalaye waxaan rabaa inaan ugu horeyn waxa weeyaan soo dhaweeyo Istanbul Suldaan Cabdullaahi Suldaan Xaaji Nuur oo ah musharaxadda sanadkan u sharaxan waxa weeye kursiga sumadiisu tahay hob 129 deegaan doorashadiisuna ay tahay gobolka Nugaal gobolka Nugaalna ka reer ahaan beesha degtaahi ay tahay beesha reer Naalaye iyadoo taasi ay muujinayso inaan waxa weeye kursiga aan cidna martay uga ahayn kursigan waxaan siinay Istanbul Carab Door waana kursiga gabdhaha waxaan u leenahay xataa cidii nagu qabsatay isaga tanaasula waana idin mahadinaynaa insha Allah bismillaah kariim hanbaliyo kursigan reer Naalaye iska leh aad iyo aad baan waxaan u bogaadinaynaa suldaamad maxaan ku xildhibaanad mar labaad iyo mar saddexaad barakaatu runtii halkan waxaan way ku soo dhaweynaynaa kuna shaacisay walaashay xildhibaanad Istanbul Suldaan Carab Door runtii waxa weeyaan codkaas ay naga codsatay tolka waxaan leenahay waa ku taageersanahay meel walba ay waxa weeyaan codkeedaasi kala dhacna waxa weey la galeynaa waa inaad yeesanahay runtii waxaan aaminsanahay inay wax badan u qaban doonto haddaan nahay dhanka ku hadlayna afka dhalinyarada ku hadlayno runtii codkaas waxa weeyaan waa qof karti leh runtii oo shaqada tan u soo madhay dulqaad badan oo soo sameysay Istanbul Cabdullaahi oo musharaxad waa maqlayseen oo hadda iyadoo halka ka sheegtay inay musharax tahay hadda tolkeed bay la hadashay idinkuna dadkii maartay wuxuu qaban lahaa ama soo dhaweyn lahaa baatiin marka inaga waxa inoo dana inaanu talweynaha u sheegno iyo deegaanka inaanu kursigaas u taaganahay oo u tartamayno ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu guuleeyo